بسم الله الرحمن الرحيم. قدوم كلابادا قولي مدن محمد شيخ عثمان جواري يوم مدن عبد حاشي عبد الله يوم كوحيقينو دا قد كلابادا قولي دورشة مدحوينها اللي بانا دا شرفت له تلياشا عيدا مدى وارباهنتا يوم مرتدي الشرفت له وحنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xubnaha baarlamaanka ee labada gole waxaan marka koowaad idinku hambalyeynaya kalsoonida ay idin soo siiyeen dadkii idin soo doortay Soomaalidii idin soo dooratay waxaan Ilaahay idinkaga baryayaa inuu hawshiina idin fududeeyo. waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta labada gole iyo martida sharafta leh ee halkan isugu timid aan hortooda ku cadeeyo inaan soo sharaxayo hoggaanka sare ee dalka 4 sano ay soo socota iyo halka aan doonayo inaan dalka iyo dadka u horseedo markaad codkiina isiisaan. sidoo kale maanta waxaan hortiina ka cadeynayaa qaabka aan u wajahayo dhibaatooyinka baahsan ee dalka ka jira. mudanayaal iyo marwooyin dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag waxaana jira amni darro baahsan ciidankii qaranka oo aan daryeel lahayn nidaamkii dhaqaalaha oo burbursan cadaalad darro iyo musuqmaasuq baahsan masiibooyin dabiici ah iyo abaaro soo noqnoqda barakac joogto ah. da'yartii Soomaaliyeed oo dalkooda ka haajiraya ka cararaya qaar badan ee badaha ku dhamaadeen waxaan taas ku sii darayaa oo aad markhaati ka tihiin in masiirkii dalka iyo dadkuba ay khatar weyn ku jirto taas oo ay sabab u tahay dawladda oo gabtay mas'uuliyadeedii qarannimo tii ummadnimo iyo tii wadannimo. dib u hanashada qarannimada iyo sharafta iyo karaamada ummadeenna waa waajib saaran golayaasha dastuuriga ah. ma ahan in shacabkeenu naga rajo dhaco ama naga rajo dhigo. ma ahan in caalamku tusaale ka dhigto ceebteenna Soomaali. waa naqanaa waa musuqmaasuq burcadbadeed xag jir iyo wax badan oo la mid ah. mana ahan inaan baahideenna dhaqaale iyo midda amni aan ku filnaan weyno. mudanayaal iyo marwooyin si aynu dhibaatada dalka daba dheeraatay aan wax uga qabanno waxaan u baahannahay isbeddel dhab ah. isbeddelka dhabta ah ma aha qof bedelaya ma aha dawlad bedelaysa. waxa weeye isbeddel hab dhaqameed siyaasadeed waan ku hoos ku xusan. waa inaynu bedelno hab dhaqanka siyaasadeed ee marka doorashada la galayo ama la gaaro lagu faano dawlad baa ay wadata oo dadka ay jujuubaysa. intaas waaba dhaaftayba waxay taagan tahay dawladdu intay timaado ay tiraahdo hebel baan rabnaa hala doorto lacagteedana waa ka daba keenaynaa. dalkan beec ma aha dadkiisuna beec ma aha. waalidiinteen iyo aabbayaasheen yaan ka dhaxalnay annagana carruurteena naga dhaxlaysa. wax shilimaad gooye ma aha. waxaynu bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabka aysan dawladda wada shaqayn lahayn. golaha shacabkaa tihiin codkii shacabkaa tihiin wakiiladii shacabkaa tihiin. waxaan ku shaqaynaynaa rabitaanka shacabka. shacabku iyo dawladdu waa isku hal. markay kala tagaan waa marka ay shabaab xoogaysanayso waa marka ay leynayso xildhibaanada waa marka shacabkeena ay leynayso waa marka ay noo diidayso horumarka. saas darteed shacabka iyo dawladda iswadata cid walba waa ka adagta.
shabaab baan imaan karin dowlado shisheeye aan imaan karin sidaas darteed waa inaan shacabka u dhowaano waxaynu bedelaynaa habdhaqanka caadada laga dhigtay ee ahaa in baarlamaanka la xiro goortu doorashadu dhowdahay waa soo aragnay 2012 waa tii baarlamaanka la xiray oo hawshii baarlamaanka loo weeciyey saxiixayaal haddana sanad ka hor waa tii la xiray oo hawshii baarlamaanka sharafta lahaa loo weeciyey madal awoodda baarlamaanka iska leh hay-adda ugu sarreysa sharci dejinta waa baarlamaanka roolkooda ama doorkooda marna kama bixi karo habdhaqanka siyaasadeed ee ahaa in mushaharada ciidamada shaqaalaha dowladda iyo kan baarlamaanka aan loo arag xuquuq ay leeyihiin loo arko hadiyad markii la doono madaxdu ay bixiso mushaharka shaqaalaha ciidamada iyo baarlamaanku ma aha hadiyad ma aha waa xuquuq sharci ah waxaan ogahay hadda mushaaharo badan inay ka maqan yihiin waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan ognahay waa caado xumo waxyaabaha dowladdan 16 sano la dhaqaaqi weyday waxaa ka mid ah isbeddel aan macno lahayn dowlad kastoo timaada oo aad doorataan waxay uga tagtaa meeshaan iyadoo howlo qabyo ka ah waxay uga tagtaa 3 ra'iisul wasaare iyo sanad walba in dowlad cusub la keeno marka hal sano see wax loogu qabanaya marka waxaa loo baahan yahay in arrintaasi wax badan laga bedelo dhaqanka ugu xun oo siyaasaddeena ku jira wuxuu yahay quus in la quusto oo la yiraahdo meeshaan wax lagama qaban karo xaaladdan way adag tahay shacabkan dowlad ma rabaan xaqiiq ma aha problemku shacabka ma aha problemku golaha shacabka ma aha problemku waa madaxdan la doorto weeye oo dadka quus gaarsiiya waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo ma aha sidaas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada ee kaliya la xasuusto maalinta mooshin loo baahdo ama marka cod laga rabo waa dhaqan xun weeye xildhibaanadu iyagaa keena madaxda iyagaa doortay iyagaa dhalay madaxweynaha ma aha kaliya marka loo baahdo marka codka laga rabo kaliya ma aha waxaa laga rabaa talaa laga rabaa waxaa laga rabaa inay dowladdaasi ay wax ka dhisaan waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto mas-uul macnaheedu waxa weeye wiilasheenna dhallinyarada ah oo askarta ah ma hanan karaan mas-uuliyadda amniga waxaan aaminsanahay waa arkay markaan prime ministerka ahaa waxay u baahan yihiin marka la siiyo inay hanan karaan oo ay dagaalyahano yihiin oo geesiyin yihiin markii xuquuqdooda meel loo saaro waxaan bedelaynaa oo kale haddii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu ilaah yiraahdo in dowladdu awooddeeda ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xirayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyneed yaan gadaal ka geli jid la xirayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuurta ku raaxaysanaynaa laakiin isuma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin dadkaad u baahnayd arrinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha
meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn mudanayaal marweyn inta aanan wax idinkaga sheegin barnaamijkayga siyaasadeed ee aan ugu magac darnay ama halku dhig uga dhignay nabad iyo nolol Soomaali intaas u baahan tahay nabad yaan u baahannahay dad waalo isku mid aan nahay waxba aan ku kala duunayn qoladan banaanka nooga soo duushay oo siyaasadda shisheeye wadata nabadda Soomaaliya horumarka Soomaaliya ma hor istaagi karto nolosha dadkeenu runtii waa mid aad u liidata Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa wadanka ugu faqrisan adduunka waana wadanka ugu qanisan ogaada marka loo fiiriyo natural resources barnaamijkaasna waa idin hoyaalaa waxaan rabaa inaan wax yar dib idin xusuusiyo ballantii aan hadda ka hor markii aan raadinayay in la ansixiyo aan hortiina ka ballan qaaday waxaan ka ballan qaaday arrimaha amniga inaan xoojiyo waxaan muddo yar gudaheeda annaga oo ilaahay kaashanayna aan magaalada Muqdisho ka saarnay nabadiidkii oo markaas haystay magaalada Muqdisho saad ogtihiinba 70% meel fog ma ahayn baar bulsho hoosteeda joogeen wad la socotaan Makka Mukarrama lama mari jirin waxaan bilownay bixinta mushaharaadka ciidamada amniga shaqaalaha dawladda iyo xildhibaanada xilligaas joogay waxaan dagaal adag la galnay musuqmaasuqa oo aan isbedel ku sameynay hay'adaha dhaqaalaha waxaana kordhinay dakhliga dawladda oo markii aan iscasilay oo ka tagay aan uga tagay khasnada dawladda 7 milyan bar meeshaan uga imid khasnad maran waxaan dib u howlgelinay telefishinka qaranka waxaan dib u howlgelinay iyadana bangiga dhexe oo xildhibaanada iyo shaqaalaha dawladda ay bilaabeen inay mushaharada ka qaataan mudanayaal iyo marweyn waxaan si taas la mid ah maanta hortiina ka ballan qaadayaa inaan dhiso xukuumad fulisa arrimaha ku xusan barnaamijka siyaasadeed ee nabad iyo nolol oo isagoo faahfaahsan aad haysataan saan sheegay waxaa number 1 ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dawladdu inay dagaal ku jirto waxa weeye dagaalku ku ka socdaa oo kaliya hal dhinac shabaab baa meesha rabta weerarta shabaab baa meesha rabta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dawladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen dagaalku wuxuu noqonayaa laba geesood waa isu tageynaa ama haddii nabad qaataana waa fiican tahay haddii nabad qaadana shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dawladda kulli waa dagaal galayna maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan nabadna nooma diidi karaan waxaan ku sameynaynaa tirakoob ciidanka aan haysano oo howlgali kara ciidanka aan howlgali karinna howlgab baan ka dhiganaynaa xuquuqdoodana waa siinaynaa waxaan siinaynaa tababar ciidanka tababarka kii la yaqaanay ma aha waxaan siinaynaa tababar wadaniyad yaan siinaynaa ciidamadeena waa dagaalyahano waa yaqaanaan sida loo dagaalo laakiin waa in la siiyo mabaadi'da ay ku dagaali lahaayeen waxaan ognahay shabaab inay ku dagaalaan diin aan sax ahayn ay gowracayaan qof ashahaadanaya iyagoo Allahu akbar leh saas darteed ciidamadeenu waa inaan siino tababar oo joogto ah oo la dareensiinayo wadannimada iyo waxay u dhimanayaan waa inaan siino daryeel ciidan aan daryeel lahayn ma dagaali karo oo calooshiis maran tahay waa inaan mushahar fiican siino waa inaan caafimaad siino haddii uu dhintana caruurtiis inaan ka warqabno agabkoodu waa inuu u dhan yahay qalab kasta waa inay haystaan oo ninka ciidanka uu kaga hortagi karo kuwa inkaarta ilaahay ku markaas waxaan ka rabnaa anshax inay la yimaadaan iyo discipline kii ku takrifala awoodiis ama shacabka dhibaateeya ama ciidanka la shaqeeya dhibaateeya haddii khasbiyan wuxuu fees garaynayaa ama wajahayaa sharcigu wajahayaa kii wax dilayna waa dilaynaa kii dambi galana waa laga goonayaa dambiga moralkooda inaan kor u kicino oo annagoo la shaqeynayna oo garab taagan oo caanaha iyo biyaha ka daba wadna inaan moralkooda kor u kicino si ay uga hortagaan cadowgan u soo
maxaan ku raahdaa xaytay inay Soomaaliya u diidaan nabad iyo nolol u diidaan tan ugu muhiimsan waxa weeye command inay leeyihiin taliya fiican inay leeyihiin kuwa dagaalka galaya taliyahaasi uu yaqaan waxa uu dagaal galayo wax laga rabo shuruucdiisa waa in isaga naftiisa la siiyo tababar joogto ah maxaa yeelay haddii uusan lahayn tababar u baahan yahay hadda ciidanku iyo askartu waa saraakiishooda wey inaan isku dhafna ciidanka waa laga wada hadlaa laakiin wax adag ma aha ciidamadii hore noo jooga oo yaqaan sida loo recruit garayo sida loo qoro ciidanka yaqaana waxa la ii sheegay unugii oo 12 ahaa hal ku qabiil inuusan jirin macnaheedu waxay tahay hadda dagaal baan ku jirnaa qof walba oo Soomaaliya oo yiraahdo dagaal diyaar baan u ahay dalka inaan difaaco oo u baahanahay laakiin waa inaan kordhino ciidanka oo aan isku dhafno arinta kale oo muhiimka ah oo qodobka labaad amniga ah abaabul shacabka Soomaaliyeed inaan u dhawaano way cidda shacabka Soomaaliyeed u dhow yaa guuleysanaysa waxa ay shabaab nooga reynayso oo nooga adkaanayso wax kale ma aha waa shacabka way shacabku waa inay dawladda aaminsan yihiin dawladda idinka raba inaad keentaan dawlad shacabku ku kalsoonaan karo shacabku waxaan ka rabnaa information inay keenaan macluumaadna siiyaan meesha ay ku jiraan shacabku waa inay dagaalka ka qayb galaan naftigooda shacabku waa inay dhaqaalaha bixiyaan oo loo wada istaago dalkaas sidii looga xoreyn lahaa hororta waa inaan media aad u isticmaalno annagoo culimada Soomaaliyeed ay banaanka u soo baxayaan iyagoo macneynaya diinta muqaddaska islaamka ah waxay tahay inaysan qabin qoladaasi waxa ay sameynayaan dhalinyaradan shabaabka ah intooda badan waxaan aaminsanahay in ay khasban yihiin iyaga naftigooda oo aysan ogeyn kuwa u taliya meelaha amarka ka qaataan oo loo soo diray dalkan inay burburiyaan oo khayraadka aan leenahay aan u tagno oo adduunka ay naga hor istaagaan wax alla wixii maalgelin ahaa oo loo baahnaa saas darteed afis baan u fidinaynaa ana ugu horreeyay wax afis u fidiyay bil gudaheeda waxaa noogu yimid 300 meesha sarindi la yiraahdo anaga dhisnay kadibna dawladihii naga dambeeyay waa maamuli waayeen waxaba qaatay oo hadda maamulaya dawladda Ingiriiska waxa ugu horreeyay Norwegianka yaa ugu horreeyay laakiin anagu cidna ma weydiisan taageero nin alla ninkii noo yimaado oo ka soo taga shabaabkana waxaan siinayna $100 dagaalkan waa dagaal dhaba weey oo dagaal xaq ah weey maxaa yeelay waxa la rabaa in maxaan ku raahdaa diinteena muqaddaska ah la xumeeyo oo nolol inaan nahay dad xun sirdoonka inaan xoojino baabuurtan qarxaya maalin walba waxa weeye sirdoonka haday awoodooda dhaqaalay awoodooda aqoon hadii la siiyo waxaan aaminsanahay sirdoonka oo la xoojiyo aqoontooda inay hawshan baabuurtan qarxinaysa oo hoteelada iyo dadka shacabka leenaya in wax laga qaban karo waxa maqlaysaan waxa wax looga qaban karaa wax yar yaan idin sheegayaa waa sahal weey $1 milyan bishii meel loo dhigo qofkii soo sheegay baabuurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabo in dibadda loo diro dawladahaasi lacag ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keeno oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate gareyno waxyaabaha ay qarxiyeen haday yihiin hoteelo haday yihiin guriyo inaan dhisno annaga maxay annaga ka masuula annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinta oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku raahdaa dhaqaalihii ay waalidkood ka heli jireen macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo ka soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dawladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dib ku dhaco ay daawaysanayso ama ay xuquuqdiisa siinayso arrinta nolosha saan sheegay slogan-keenu waa nabad iyo nolol waana waxaan u baahannahay labadaas haddaan abaarno waxaan aaminsanahay dalkan inuu noqon doono dalalka ugu khayraadka badan waxa ugu horeeya haddaan nolol rabno musuqmaasuq inaan la dagaalno musuqmaasuqu waa cadowga siyaasadda cadowga dowladeed weeye siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuqmaasuquna wuxuu yahay cadowga horumarka waxaa laba beri ka hor la soo saaray Transparency International soo saareen sanadkii 10aad
inaan uga jirno waddanka ugu musuqmaasuqa badan adduunka 176 baan uga jirnaa waddanka ugu horeeyana waa Denmark maxaan noo diiday inaan Denmark la tartanno marka maxaan ugu jirnaa inaan noqono dadka ugu xun adduunka ilaa musuqmaasuqa macnaheedu waa tuug weey diinteenu ma ogola dad islaana nahay maxaana gaarsiiyay in adduunku nala yaabo ay yiraahdaan dadkaan bini aadan ma aha walaalayaalow mudanayaal marwooyin haddaad i doorataan musuqmaasuqu waa targetkayga ugu horeeya weey waa la dagaalamaynaa si foorxunna waa ula dagaalamaynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala dad ummadana waa ku ceebeenaynaa xabsi dheerna u direynaa kaabayaasha dhaqaalaha inaan soo celino si dhalinyarada Soomaaliyeed oo shaqo la'aanta haysato ay shaqooyin uga helaan waa inaan maalgelin shisheeye keeno maalgelin shisheeye ma imaanayo waddan musuqmaasuq hareeyay marna ma imaanayo maxaa yeelay yaa tuug wax ku darsanaya dadkaas waa dad nadiif ah ma Denmark ku imaanaysa ku imaan mayso maxaa yeelay rekorkaaga yaala waa inaan isa saxna annaga oo aan noqono dad islaan oo sax ah oo raba waqtiga caalamka hadda uu ku nool yahay 21st century liiraan inaan ku noolaano dib u heshiisiinaan samayno dad waana waxaan ku kala duwannahay male waxaa laga yaabaa siyaasiyiin inay kala fogeynayaan laakiin dadka Soomaaliyeed col ma aha waxaan xoogga saaraynaa aniga hadda ay doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonaya waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oo dhaqameedyada Soomaaliyeed oo rasmiga ah ayaan xoojinayaa mushahar joogtana u qorina hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo rabaa inaan dhameystiro wada hadallada u dhaxeeya walaalaheena Soomaaliland iyo dawladda dhexe Soomaali waa dad walaal ah ma kala maarano wixii ku dhaca annaga nagu dhaceen wixii annaga nagu dhacana waa naga naxayaan waa isu baahannahay ma kala maarano waana inaan ugu hambalyeeno runtii horumarka ay ka gaareen inay deganaansho xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale inay sameeyaan waana wax muhiim ah in looga daydo insha Allah hadii Ilaahay aad siisaan codkiina aad siisaan inaan meeshaas ka bilaabo dadkaas walaalaheena inaan la fariisano wax alla waxay tabanayaan si daacada oo Ilaahay hortiisa inaan ugala xaajoono maxaa yeelay anagu dad yar yaanahay oo soo wada baahan marka mar walba waa u baahannahay arrintaasi waxaa salo ah nabadda iyo nolosha aan sheegay dawlad wanaag iyo sareynta sharciga dawlad wanaag waxa weeye wada shaqayn u dhaxaysa madaxweynaha ka bilaabanaysa iyo prime ministerka saan ognahay laga soo bilaabo 2000kii ilaa hadda madaxweyne walba wuxuu shaqada ka tuurayay prime minister ninka ugu yar yaa 3 prime minister keenay macnaheedu waxay tahay arrintaas waxaa lagu wada shaqeynaya awal badan gaar ah dan guud ummadda isku qabsato haddii ninka madaxweynaha uu barnaamij ku keeno dan guud waa inuu keeno qof ka fiican ma aha inuu raadiyo qof xun ama qof liito inuu keeno ma aha haddii wax isku qabsadaanna in baarlamaanka sharafta leh in la soo dhaxgeliyo hawsha oo la yiraahdo hadii tala fiican keena marka labadan tala isku haynaay ilaa dan gaar ma jirtee tala fiican keena waxa laga yaabaa tala ka fiican labadooda in la keeno sareynta sharciga waa muhiim waa waxyaabaha aan runtii ka gaabino weey haddii madaxweynuhu ka gaabiyo sareynta sharciga ra'iisul wasaaraha waa ka gaabin dawladdu dhan waa ka wada gaabinaysaa waxa matal u ah example u ah madaxweynaheena hadda jooga oo waqtigiisa dhamaaday sharci kuma fadhiyo intuu idin hor yimid baarlamaanka hor yimid idin ma oran waqtigii waa haleeli waay waxaan u baahanahay waqti dheeraad ah iigu dara oo sharciyay idin ma oran laakiin idinku waa sharciyeyseen oo gudoomiyada baarlamaanka waa sharciyeyseen laakiin isaga ma soo marin levelkaas saas darteed waxa weeye in la joojiyo dhaqankaas dhaqan fiican ma aha maxaa yeelay madaxweynuhu waxa la rabaa inuu noqdo good example oo lagu daydo
nidaamka federaalka ah nidaamka federaalka ah waxaan u baahannahay inaan si rasmi u hirgelino hirgelintana ama dhaqangelintana nidaamka federaalka ahna waxaa loo baahan yahay in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo la qabyo tiro kadibna afti loo qaado waxaan rabaa inaan la hadlo dhalinyarada halkan ku jirta oo aan isleeyahay number fiican waa soo galeen baarlamaanka waxaa Soomaaliya soo maray dowladnimadeeda 3 jiil hore oo axyaa wadani ahaa oo ka saaray dalka gumaysiga oo qabiilka banaanka iska dhigay oo midnimada Soomaaliyeed xoojinayay aad bay u soo shaqeeyeen ilaahay hasiyo naxariistiisii waxay Soomaaliya keeneen meel dawlad aan ka noqon karno jiilka labaad waa jiilkii dawladda noqday oo soo socday ilaa 91 jiilka saddexaad waa dhalinyarada hadda soo gashay qaarkood oo ku hana qaaday burburkii waxaan rabaa inaan xuso gudoomiyaha baarlamaanka hadda ka hor waxaan ku raxmo mudane maxamed sheekh Usmaan Jawaari oo dhalinyaro la hadlayay dhalinyaradaasi wuxuu ku yiri hadal taariikhi ah wuxuu ku yiri naga raali ahaada 3 jeer naga raali ahaada oo naga raali ahaada waayo idin ma diyaarin wixii jiilkii anaga naga horeeyay oo SYL ka ahaa ay noo diyaariyeen oo wadanimada ahayd waxaan marka su'aal ah marka jiilkaas dambe oo hadda jooga oo dhalinyarada u badan xildhibaanada u badan shalay markii jaamacadaha dhiganaysay waa la yaabanadeen siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa la yaabanadeen waxaa la heedeen maxaa ka hadlaysan 16 sano waa badan tahay maxay wax isu qabsan waayeen maxay wax u halaysan yihiin hadda idinka qalanka haysta qalanka idinku gacantiina ku jira waxaad kala dooranaysaan marka dhalinyaro xildhibaan ba sharfantihiin waxaad kala dooranaysaan inaad sidii gudoomiyaha baarlamaanka aad raali gelin siisaan kuwa idinka dambeeya oo aad tirahdaan markaan qalinka haysanay wax waa idin qaban weyn oo dana shakhsi aan qaadanay ama kuwii axyaa wadani ee SYL ahaa oo midnimada Soomaaliyeed keenay jidkooda qaadaysaan wadankan badbaadidiisa horseedkiyaad ka noqonaysaan dumarka Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed oo iyaguna qayb weyn ka qaatay baarlamaankan hadda aad baan ugu faraxsanahay inay ku soo bateen laakiin isan dhameystirmin 30% laakiin waa taariikhi ah waxaan nasiib darro ah Soomaaliya waxay noqotay meesha dunida ugu xun ee hooyada iyo dhallaanka qiyaastii 6 ilaa 10 hooyada dhalatay hooyad uurka leh 6 ilaa 10 waxay halis u tahay inay dhimato ama ay umul raacdo 10 ilmaha dhalanaya waxaa laga yaabaa inay dhintaan infant mortality inay u dhintaan hooyada Soomaaliyeed waa tan markii dib dhaco qaxda waa tan ooyeysa markii ilmihii ay ku babacaan badda waxaan ka codsanayaa codkiina si aan u badbaadino dhallaanka iyo haweenka Soomaaliyeed oo runtii dib kugu daran iyagu ku dhacayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh